ma aqaana magacaaga sidoo kale ma xasuusto wejigaaga haddana waxaan u baahanahay inaan ku sawiro ma haysto qalin iyo warqad ama qalab kale aan kuugu sawiro haddana weli waxaan u baahanahay inaan muujiyo qofka aad tahay laakiin suurtagal ma tahay haa sheekadu sidaad mooday maahan uma baahni qalin iyo warqad derbi aan kuugu sawiro ama rinji aan isticmaalo si aan wejigaaga u sawiro kaliya waxaan rabaa inaan tixo dhaqamadaada maalinlaha iyo waxyaabaha aad qabatay si aad u tiraahdo haa qofka aad ka sheekaynayso waa aniga ma dhibsataa qabashada shaqooyinka muhiimka ku ah sidaas daraaddeed ma doorbidaa ismaaweelinta iyo malayacniga xaddhaafka ah ma dib dhigataa waxyaabaha diyaarintooda lagaa sugayo sida imtixaanada iyo shaqadaada oo kale ma dareentaa culays iyo caaji saa'id ah marka aad wax baranayso ama aad shaqo qabanayso ma ku daadaa subax walba hurdada adigoo ay ku hor yaalaan howlo muhiim ah ma tahay qof afkaar iyo hal abuurnimo badan haddana weligiis aan fulin hal tilaabo oo ka mid ah hal abuurnimadiisa haddii aad isku aragtay dhaqamadan ama qaybo ka mid a waxaad tahay waasilow ama waxaad tahay waasiley waxaadna u baahantay inaad si degdeg iskaga gaartid oo iskaga dawaysid dhaqankan xun marka u horraysa aad daawato videogan waasiduna waa caado xun oo sabab u noqon karta inaad caajiska laftigiisa la qabsato oo aad ka quusato hirgelinta hamigaaga waxaana sabab ah qorshan la'aanta nolosha iyo naftaada oo kaa adag maalin walbana dhinac kuu ridata adiguna aad ku soo aruurto qabashada howlaha yaryar uun islamarkaana aad karaasato qabashada howlaha muhiimka ku ah ee ku hor yaalla hadda waxaan u malaynayaa waa ogaatay dhibaatada waasida oo waxaad u baahan tahay inaan kuu sheego sidaad uga bogsan lahayd keliya taas waxaa kaa xiga 5 qodob inaad fuliso kow ka adkow maskaxdaada inaad waasato waxaa sabab ah sidaad u fikirayso waxaad iska dhaadhicisay inaad daalan tahay sidaas daraaddeed waqti badan waxaad maalin walba iskaga cuntaa inaad nasato oo meelo micno daraa waqtigaada aad ku lumiso waxaad iska dhaadhicisay inaad waqti badan haysto sidaas daraaddeed waxaa ku dhaafa waqtigaad ku qaban lahayd howlaha ku hor yaalla waxaana la gaaraa dabaadigii iyo dhammaadkii waqti walba sidaas daraaddeedna waxaad ka hartaa howlaha muhiimka ee kugu hareeraysan haddaba haddaad rabti inaad maskaxdaada ka adkaatid mas-uuliyad dheeriya iska saar sidaad u fikirto mar walbaad waasi isku aragtana dib ugu noqo sidaad u fikirayso islamarkaana u beddel si kuu adeegaysa adiga 2 ha sugin waqti saxa ma jiro dunidan mar wax walba ay saxnaanayaan waqti saxana u imaanayo si aad u firiso howlaha ku hor yaalla waqtiga ugu saxan waa xilliga aad hadda daawanayso inaad ku dhaqaaqdo howlaha ku hor yaalla haddii aad dib u dhigatana weligeed ma imaanayso waqti la yidhaha sax mana ka mid aha nolosha waqti u gaara xilliga wax la bilaabo 3 ka fogow cabsida markaad wahsanayso gudahaaga waxaa ka yeeraya cod ku leh lama gaarin xilligaagii uma qalantid waxaan qabashadooda waxaad haystaa waqti badan iska jiifo lama gaarin waqtigaagii waxbarasho maadan gaarin ama waad ka duqooday codka noocaasa ku beddel waa xilligaygii waa xilligaan fuli lahaa hamigayga waa xilligaan soo taaba lahaa waxyaabahan ku haminayo si aad uga guul gaartay cabsida qodobka 4 waa qorshaynta waqtiga howlahaaga oo dhan warqad ku qor islamarkaana u yeel waqti aad qabanayso oo lama dhaafaana naftaaduna ay ku xukuman tahay inaad qabato xilligaasi mar walbana gacanta ku hayso warqadaas subax walba inta fiirisid isku dhaarso inaad qabato oo nafsadaada kula ballan howlaha ku qoran maalintaas hana ka soo laabanin maalintaada adigoo aan dhammayn xuduudda aad degsatay maalintaas ugu dambayn qodobka 5 waa inaad fuliso 4 qodob aan kuu soo sheegay haddii aad ku dhaqaaqdid qabashada qodobada aan hadda kuu soo sheegay waxaa hubaala inaad ka bogsanaysid wahsida oo aad u howlgalaysid naftaada islamarkaana aad ka guulaysanayso caadadan xun ee waqtiga badan dib ku haysay islamarkaana aad ka faa'iidaysanaysid hal abuurkaaga iyo waqtigaaga muhiimka haddii muddo badan waasidu kugu haysata xabsi maanta waa maalinta aad ku xoroobi lahayd oo aad u dhaqaaqi lahayd hirgelinta hamigaaga u dhaqaaq howlahaaga kuma harin waqti dambe